السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada walaalayaal waa walaashiin barwaaqo channelkan laga daawanaysiina waa la wadaag channel. Haddaad nagu cusubtahay walaal soo dhawaaw, please subscribe tahay la dhaafay subscribe isaar. Haddaad hore noola joogtana haddana soo dhawaaw. Maanta waxaan ka hadli doonaa sida aad u samaysan kartid saliid timaha khaleelka kaa ilaaliso, jajabka kaa ilaaliso, timaha kuu bixiso. marka insha Allah waxaan rajeynaa walaalayaal inaad subscribe ii saartaan oo aad i gaarsiisaan 10,000 hadduu Ilaahay idmo. saliida walaal waxay ka kooban tahay saliidyo badan oo kale oo iyagana markale faa'iidadooda kasoo hadli doono, laakiin waxaan ku bilaabeynaa hadda aniga aan ku darsan doonaa saliid qumba. saliid qumba waxaa soo qaadanaysaa inta adi xadidaada iyo qiyaastaada kugu filan. aniga ilaa 3 qadac camal ku darsaday. digsiyaad kusoo shubanaysaa, markaasna dab yar oo aad u qabow ayaad ku dhalaalinaysaa insha Allah ilaa intay kaaga dhalaasho. degdeg ma jiro, dab aad u karkarayana kuma dhalaalinaysa, dab yariisa ku dhalaalinayna saliid si fiican u dhalaasho. maadaama aan rabno inaan saliida kale ku darno waa inaan iyada gooda tartiib ku dhalaalina horta. markaa saliida cabaar aad dhalaalisid oo hadda anaga maasha Allah waynoo dhalaashay. kadib waxaan kusoo darsanayaa saliidaha kale. saliida isticmaalaya aniga waxaa kamid saliida looska, waxaan ku darsanayaa qiyaastii ilaa 1 deciliter. markaa saliida looska ku darsid waxaan kaloo hadda isticmaalaa saliida avocado-ha, iyadana aad ay ugu fiican tahay timaha. marka idan 1 deciliter ku dar waxaan ku dari doonaa insha Allah saliida castor oil-yaha iyo saliida macadamia oil la dhahaa. saliidaha dhan yacni faa'iidadooda markale kasoo hadli doonaa, waxay ku fiican yihiin, waxay timaha u taraan. insha Allah video kale kasoo samayn doonaa. marka intaas aan ku daro waa saliidaha waa isdhexgelinaysaa, dab yar oo qandaca saaraysaa. marka waa qasaysaa si isku dhexgalaa saliidaha dhan fiican isku dhexgelinaysaa. haddii aan marka aad tahay dadka lafta hoose ka qalalan ama lafta hoose ay kaa qalalan tahay ama cambaar camal waxaan ay kaa saaran yihiin oo aad u baahan tahay marka inaad laftaas ay kuu qoydo, waxaa aad ugu fiican aad ku dari kartaa glycerin. soo biyaha jiro oo kareemada lagu darsan karo oo saliidaha madaxa lagu darsan karo sida hadda aniga meesha idinka tusooyo camal. marka hala yar oo glycerin aan ku daraya maadaama uu qaleelka lafta qaleelka u fiican yahay. haddii uu madaxa kaa qalalan yahay ama lafta hore kaa qalalan tahay, yacni timaha way kaa jajabayaan, difaacan kuma baxayaan. marka inaad la dagaalatid qaleelka timaha hoosta ka qalalan aad ayay muhiim u tahay. hadda waxaan sameynaynaa marka glycerin aniga maxaan rabaa waxyar inaan ku darsado oon ka hortago markaas qaleelkaas. glycerin yaraan ku darayaa, kadibkeedna waan isdhexgelinayaa dab yar oo qandaca oon cabaar ku qasayaa si ay iskugu dhexgalaan saliidaha si fiican. haddii aad rabtid xaaladan markay joogto ayaa waxaa samayn kartaa dhageyraad ku dari kartaa, ku qasi kartaa hadhowna waa iska miiri kartaa. marka cabaar dhexgelisid haddaad rabto waa shiidi kartaa, dhageyra aad shiida inaad ku dartid aad ku qandicisid saliidda dhexgelisid aad hadhow ka miiri kartaa. dhageyraha kusoo shubaysaa, dhageyraha marka weelkaas aan kusoo shubo waxaan sameynayaa saliidda kugu shubanaya. marka waa isla dhiganayaa
إنك عبارة إسكال على سنت سليدة سيجارة بعد لما تغييرات سليدة سويس لعليان مركو حاسمينيسا waa shiidaysaa waa ku qasaysaa dhow waa ka miiri kartaa ama haddii ay ku fududahay ba asoo sidiisa ku daraysaa cabaara aad ku gedgedinaysaa sariirta qandaca hadhowna waad iska bixinaysaa lama sida hadda aniga ayaanaad yeeli kartaa weelkaad ku shubanaysaa saliidda ku kordaraysaa ilaa maalmo dhan ay iska aalaysaa iska dhex jiraysaa ilaa saliiddaas ay kaaga dhammaato saliiddan alaan dhammaantood markaas ku dirtid wax shiir ah ma yeelan karaan hataa caraf gooni aragtidna waxaa jiro saliid flexita carfayso waad soo qaadan kartaa waa ku dari kartaa shiir iyo caraf gooni ah ayay kuu sameynayaan laakiin waqti haddaasaan ku dhaftid waa ku isticmaali kartaa laakiin wax shiir ah haba yaraatee ma yeelanayaan marka hadda markaan soo dhameeyay samayskeedii waxaan rabaa inaan ku shubto waalkii aan rabay waa ujeedaan markaa saliidaha la dhan isku dartid oo waalka aad ku shubtistaas quruxda badan ay kugu soo baxayaan maasha allah timahana lagama sheekeyn karay noqonayaan haddaadan hore u baroobin hadda soo baroobay samayso saliid aad qof soo qaadid ama wax lagu daray aadan ogeyn ayaad oga raysanaysaa waxaad aad gacantaada ku samaysata ayay ku noqonaysaa marka insha allah anigana walaal please subscribe to Isa